ma yaqaanaan mana ixtiraamaan waxaan ka ahayn nashiidadooda u khaaska ah iyaga, balse marka ay ciyaariso kooxdooda fiinaalada maxalliga ah iyo kuwa qaariga ahba ee la daaro nashiidada waddanka Ingiriiska, waxay bilaabaan buuq iyo inay ku fooriyaan kala jarahna heesta calanku marka ay marayso Allaha xafido boqoradeenna, iyaga oo ku bedela jumlada ah Allaha xafido kooxdeenna. Mar uu ka hadlayay tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp sababta ay taageerayaashu u sameeyaan waxa uu yidhi: inta badan jamaahiirtaydu waa kuwo wanaagsan, dhab ahaantiina maskax badan, sabab la'aanna umay sameeyeen ficilada. Waxaan u malaynayaa inay la xidhiidho waxyaalaha hore u soo dhacay. Haddaba waa maxay waxyaalaha hore u soo dhacay uu Klopp sheegayo? Muuqaalkeenan ayaynu kaga wada bogan doonaa daawasho wanaagsan. taariikhdii hore magaalada Liverpool waxay ahayd magaalo xeebad leh dekado kana mid ahayd ilaha dhaqaale uu waddanku ku tiirsan yahay. Kadib markii uu soo dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka, waxaa magaalada soo food saaray cadaadis dhaqaale hoosna u riday ganacsigeedii dekadaha. Waxayna ahaayeen shacbi weynaha reer Liverpool kuwa sugayay inay ciidamo soo fiirso gacan caawimo. Xukuumadda waddankuna may soo faragelin xaaladda xun ay ku sugnayd magaaladu, waxaana arrintaasi gaar ahaaneed mas-uul ka ah ra'iisul wasaarihii xilligaa ka arriminaysay waddanka ee Margaret Thatcher, taas oo lagu tilmaamay inay nacayb u hayso Liverpool iyo soo galootigii reer Scottish ee xilligaa kusoo qulquliyay deegaankooda. iyada iyo xisbiga ay ka tirsaneedba waxay ahaayeen kuwa iska indhatiray in ay Merseyside ku celiyeen ganacsigeedii hore, taas oo sababtay inay magaaladu soo food saarto faqri aad u darani. Thatcher ayaa sidoo kale ka hor istaagtay lacagihii kabka ah ee magaaladu ka heli jirtay xukuumadda. Waxay xaqiiqsadeen shacbi weynaha reer Liverpool in la takooriyo deegaankoodana aan waxdan ah aanay ka lahayn xukuumaddu, waxayna bilaabeen inay u qaadaan colaad iyo nacayb ka dhan ah xukuumadda iyo boqoradaba. Intaa waxaa dheer, Liverpool waa magaalo ku caan ah soo galootiga sidaan hore kasoo sheegnay, waxaana ku badan Irelandska kadib markii ay martigelisay malaayiin reer Irelandis ah oo gaajaysan, kuwaasoo ka mid noqday shucuubta magaalada ku nool una arkay inuu yahay waddankooda cusub. sidoo kale nafsad ahaantooda isumay aqoonin in ay yihiin Ingiriis, waxayna kasoo muuqdeen garoomada iyaga oo sita ama xidhan boodhar ay ku xardhan yihiin waxaanu nahay Scottish ama nihiin England. mana joojiyaan jamaahiirta Liverpool cadhada iyo nacaybka ay u qabaan siyaasiyiinta ay kala soo kulmeen takoorka sanadihii la soo dhaafay. sidoo kale waxaa jirta dhacdo kale oo sii siyaadinaysa colaadda ka dhanka ah boqoradda, waxayna ahayd dhacdadii caanka ahayd ee Hillsborough ee dhacday 15 Abriil 1980, taas ay ku dhinteen 97 taageero isriixid jamaahiirta dhexdooda ka dhacday xilli ay rabeen inay xoog ku galaan garoonka. waxa ayna ahayd kulankii semi-finalka FA Cup oo u dhexeeyay Liverpool iyo Nottingham Forest. xilli ay cidhiidhi baaxad leh ka jirtay iridaha hore ee garoonka laga galo, ayuu taliyihii booliska garoonka ilaalinayay amar ku siiyay in la furo albaabka dambe ee laga baxo, taasoo keentay in taageerayaal badani kasoo qulqulaan kadinka iskuna jiidhaan. dhimasho iyo dhaawac badan baa uu ka dhashtay. dabadeed ay ka been sheegeen mas-uuliyiintii waddanka iyo ciidankuba khaladaadkii halkaas ka dhacay, taas aanay ku qancin jamaahiirta qaabka ay dowladdu uga falcelisay masiibadii soo haleeshay, taas ay qaadatay muddo ku dhow 30 sano in bannaanka la keeno ciddii mas-uulka ka ahayd masiibada. 2016 ayaa la xaqiijiyay in aanay jamaahiirtu mas-uulka ahayn dadkii ku dhintay dhacdada, ay mas-uuliyadeedii lahayd ciidankii ilaalinayay garoonka. mar uu ka hadlayay ra'iisul wasaarihii waddanka markaa haystay ee David Cameron, waxa uu yidhi: runtii waa wax aad looga xumaado in muddo dheer ay qaadato in bannaanka la keeno ciddii mas-uuliyadda lahayd, waxaana xukumo kala duwan lagu riday askartii mas-uuliyadda yeelatay. markaas ayayna go'aansanay jamaahiirta Liverpool in ay kala jaraan nashiidada waddanka.